hay-adda gurmud Soomaali ayaa deeq raashin waxa ay gaarsiiyeen dadka ku dhaqan deegaanka wadajir oo hoos yimaada magaalada Kismaayo. Maxamed Qani Xuseen Kuusow ayaa warkan inoo faahfaahinaya. ugu yaraan 80 qoys oo ah dadka ku nool duleedka magaalada Kismaayo ee danyarta ah ayna abaartu saameysay ayaa maanta la gaarsiiyay deeq raashin oo ka kooban bur, bariis iyo saliid, taasoo ay bixisay Gurmud Somali Relief oo ah hay'ad ay ku meesayeen dad muxsiniin oo degan wadanka Australia kuwaas oo soo kaalmaystay sidii ay u gargaari lahaayeen dadka ay abaartu saameysay. waxaana dadkan deeqda la gaarsiiyay ka muuqatay diifta iyo abaartu saameynta ay ku yeelatay. waxaana halkaasi kula hadlay warbaahinta deeq Sheekh Xasan oo wakiil ka socday Gurmud Somali Relief oo sheegay in deeqdan iyo deeq kale soo gaarsiin doono dadka ay abaartu saameysay. gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee degmada Kismaayo Cabdi Bare ayaana u mahadceliyay dadkii soo dhiibay deeqdan, waxaana uu sheegay in aysan ku filayn baahidooda laakiin ay tahay kaalmo aysan ka maarin marnaba. الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. إلهي بقى مهدسن مهد إلهي بقى إسكاله ما أنتوا تاريخه تاي طبنكي بشي أفراد لبعض كوني تطبيق طبنكا وحان كقايبيننا راشين قرمتك iyo gargaarka Soomaaliya loogu talagalay oo ka dhacaysa degmada gobolka Jubbada Hoose degmada Kismaayo oo ay bixisay ay soo dhiibeen walaalaha Australia hay'adda Gurmud Somali Relief oo boardkeeda u jeedaan halkaasaan ku qaybinaynaa. aad baad u mahadsantihiin insha Allah. dadka Soomaaliyeed ee dal iyo dibad jooga waxaan ka codsanaynaa in aad ka soo qayb qaadataan ka qaybgalka iyo u gargaaridda danyarta walaalahooda anigoo ah wakiilka hay'adda Somali Relief. aad baad u mahadsantihiin. waxaan halkan ku haynaa saaka raashin yar oo hay'adan magacaan leh ay keentay oo ah 80 qoys oo 2 item la siinayo bur iyo bariis iyo saliid. intaas ay ahayd intina waxaan u garanay dadka ugu jilicsan oo meel duur jooga oo xoolo haysanin oo aan ganacsi haysanin oo dad duur jooga tabaalaysan ah oo dadka awal xoolaha iyo beeraha iyo waxaas ku noolaa ah xoolihiina wax ka dhintay wax ka tagay noqdeen beerahoodina 3 sano 4 sano abaar ay haysay ayaan u garanay oo siinay 80 qoys weeye waa ku yar yihiin laakiin 80 ugu mudnaa oo ugu nuulaa waan siinay. dad fara badan baa ereyadan degan kuwa hadda waxba aan la siin baa jooga. intaasaan anaga u garanay xalan soo dhalmanay guura halkan ku nimid marka alxamdulillah rabbil caalamiin waxaan uga mahadcelinayaa hay'adda gurmadka abaaraha Somali Relief fadhigeedu yahay Australia oo nin muxsin ah magaalada jooga soo wakiishay degmada gudiga abaaraha degmada Kismaayo soo gaaray. dhankooda dadka la gaarsiiyay deeqdan ayaa ka mahadceliyay ayagoo sheegay in baahi weyn u qabeen in deeqdan la soo gaarsiiyo. idinkala waa idinku mahadinay waana hadii laama waana idinkaga mahadcelinay deeqdan soo gaarsiiya dadna xoolahayna waa naga baabeen alxamdulillah 4 sanana waa naga baaysay wax biya iyo wax baad waxaan haysana ma lahan. waa ku mahadsantihiin waana ku faraxsanahay. waydii ugu dambeeyay guddiga gurmadka abaaraha ee Jubbaland ayaa wadaalo ku aadan in dadka dhibaatooyinka ay haystaan ee abaartu ay saameysay deeqo kala duwan la gaarsiiyo. الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي الحمد لله الحمد لله الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي الحمد لله الحمد لله حمدا إلهي وشكرا
أنت يا معبد يا من جل قدرا